culimada magaalada ka hadashay Cumar Sayid oo tiri hantida samaysatay xalaal iyo xaraam waxay tay kala garanayno Cabdirashiid Salebaan xogay ku-xigeenka ganacsiga ee xisbiga mucaaradka wadani oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu eedeemo u jeediyay maareeyaha hay'adda duulista iyo hawada ee Somaliland Cumar Sayid maareeyaha ayaa dhawaan isaguna eedeemo u jeediyay hoggaanka xisbiyada mucaaradka Cabdirashiid oo ka jawaabaya eedeymaha Cumar Sayid sidoo kalena isaga duraya waxa uu yiri shaqaalaha dawladdu sidoodaba sidoo dhigaya xeerka shaqaalaha dawladdu waxa ka mamnuuca iyaga laftoodu inay ka hadlaan arrimaha siyaasiga taagan waxaynu arkaynay sideedaba xeerka shaqaaluhu wuxuu dhigayaa shaqaale agaasime waaxeed maareeye waxay ka madax banaayihiin political parties ka axsaabta inay u jawaabaan ama la hadlaan waxa maalmihii ugu dambeysay aynu arkaynay maareeyaha duulista iyo hawada Cumar waxa weeyaan la hadlaya rag aanu taytalahaan aana isku dhigmin aana u dhaweyn aanu waxa weeyaan aana isku meeqam taagnayn oo waa kow waa Ayatullah Faysal Ali Waraabe waa murashax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro waa gudoomiyaha xisbiga waddan Xirsi Cali Xaaji Xasan Cumar waxaan leeyahay free Cumar Sayid baanu leenahay Cumar waxa weeyaan waa hostage ku yahay waxa weeyaan waa sidii aygii la oran jiray qabo in u soo jawaaba axsaabta mucaaradka taas waxay tilmaamaysaa inuu yahay nin mushaharka la siinayo isagoo kalifan ay Cumar TV-ga soo istaagay oo la soo diray oo canaan badan ay ka muuqato isagoo waxa weey dadsanaan badan ka muuqato canaan ka muuqato leeyahay u jawaab Cumar wuxuu aaminsan yahay mushaharku qaato iyo shaqaalaha wasaaradda uu yahay madaarada uu ka yahay nin shaqaalo civil wuxuu aaminsan yahay haddaanu dhaliilin axsaabta mucaaradka in salariga uu qaato iyo bayroliga uu yahay in laga goynayo buu qaato dhibaatada Soomaaliland maanta ka jirto waxa weeyaan waa guulwadatii ugu weynayd dawladda Siyaad Barre xarigay dawladda Siyaad Barre kala siman tahay waxa weey berigaas oo kala xarigu aad buu badnaa dhaqanada xulxun ee maanta taagan waxa kamid ah guulwadaynta qofku inuu guulwadano gar iyo gar darbaynu ku taageero waad arkaysan Cumar inuu xafiiskiisa ka mashxaaradeeyo lahaa madaxweynuhu jaasaya madaxweynuhu ciyaaraya madaxweyne ordaya wax qabad uu madaxweynaha ku amaanay ninka miidiyaha soo istaagay oo uu leeyahay madaxweyne Muuse taas uu qabtay ma jirin waxa weeyaan waa nin la dhacsano madaxweynaha iyo habdhaqankiisa waxaan oran karaa YouTube Cumar ku fiicantu YouTuber furto oo dadka dressingkooda iyo labiskooda iyo shakhsiyadooda ka sheekeeyo laakiin maaha mas'uul ku haboon position ku fadhiyo Cumar waxaynu ognahay hantida uu ka samaystay madaarkayna ognahay iyo waxa ka dhacay bayna ognahay culimada magaalada ka hadashay Cumar Sayid oo tiri hantida samaysatay xalaal iyo xaraam waxay tay kala garanayno marka Cumar waxaan leenahay hantidaadii baaba calaamad su'aal saaran tahay ka samaysatay isla xisaabtana meeshan ma jiro hadayba accountability jirto maanta Cumar wuxuu ka caawin lahaa jeelka Mandheero ku caawin lahaa halkay ka xidhiyihiin sidcada guda iyo sulda sulbiyo ayaa hay'ad lagu xidho way qofku haduu liiso hanti umadeedu sameeyo ku tagrifal sameeyo guulwada indhabeelab wixii ku qarsanaya waxa la madaxweyne teamka xulatay waa team aan ka muuqato fashil aan ma hayaan waxaan ahayn madaxweynuhu qoslaya madaxweynuhu ordaya waxaasina waa wixii dawladii maxaa Siyaad Barre lagu yaqaan aabo siyaadowdii oo waxa weeyaan casriisan oo casrigan maanta 22 soo gaaray Cumar waxaan ku tilmaami karayaa guulwada dawladii Maxamed Siyaad dib uga dhacay oo waqtigiisa dib uga dhacay oo soo habsaamay Cumar waxay ahayd waqti hore ayuu Cumar dadkiisa ahayd laakiin Cumar waxaan leeyahay adduunyada maanta la jooga waa adduunyo isla xisaabtan leh adduunyada maanta la jooga aqoon baa lagu jooga Cumar waxa fashil ugu filan madaarkii Cigaal International Airport waxa shandadaha looga qaadaa waxa weeyaan bahaladan lagu qaado waxa dibida waxa lagu qodo waxa cagacagaf tariixda ayaa handbag la saaraya fashil taas ugu filan على قناة Universal TV Hargeysa